kulato waxaan wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee alaaban ku xiran janaalka ku soo dhawaada barnaamijkeeni alaabad uga barateen isbuuc walba inaanu mar kaga soo deeno halkan anigii saaxiibkay Cismaan Ciryar oo alaab ka faaloodo arrimaha siyaasadda guud ee Soomaaliya qaasatan si gaar ah diiradda aan ugu saarno xaaladihii ugu dambeeyay iyo isbedeladii ka jira geeyga Soomaaliyeed Cismaan markii ugu horeyso waxaan ku leeyahay waad maasantahay ku soo dhawo barnaamijka waan dhawaay oray Cismaan saay Cismaan markii ugu horeyso waxaan rabnaa sida caadada ahba xaaladda barnaamijka waxaanu diiradda ku saarnaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ka jiray isla markaana waxaanu diiradda ku saarnaa caqabadaha aan isleenahay marka ama way soo wajahan yihiin ama wayba taagan yihiinba sida la socotidba qodobo dhowr ayaan rabnaa inaan barnaamij ku soo qaadano ay ka mid yihiin xilka qaadistii hay'adaha amniga dawladda sidoo kale hanjabaadii ra'iisul wasaare Roble iyo waliba cabasho ballaaran ee ka imaanayso Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha Puntland oo qaar ka mid halkaasi beelaha dega ay ka cabanayaan marka waxaan rabaa inaan ku hormarno qodobka koowaad ee ah bal xilka qaadistii hay'adaha amniga maxay ka dhigan tahay tani maxay si u gogol xari kartaa ayaad isleedahay hadda u fiirisay xaaladda ka taagan hadda Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim Cismaan inta badan inagu waxaynu ka hadalnaa xaaladaha taagan ama isbuuca taagan ama maalmaha taagan horta runtii doorashadii Soomaaliya caqabadihii ugu badnaa gaday ka taagnaayeen way soo afjarantay xoogaa waxa harsan kaliya arinta Soomaaliland arintaasna insha Allah way gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed baa loo xirsaaray iyaduna way dhamaan doontaa shalay ilaa iyo maantay ayaga laftigooda waqti baa loo qatay waxa la sida ugu dhaqsiya badan aad weyn marka ayaantan waxa jirtay in badan qolada mucaaradku waxay ra'iisul wasaaruhu inta badan ku eedeyn jireen ra'iisul wasaaruhu awood uma lahan inuu wax sameeyo falqaado wixii amniga ilaa ra'iisul wasaaruhu madaxweynuhu wuxuu u yigmaday arrimaha doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka dadka inta badan waxa rabaa inaan kelmadda aan kaga faa'iideysto Cismaan ra'iisul wasaaraha waxa loo igmaday arrimaha doorashooyinka iyo amnigiisa laakiin amniga dalka guud ra'iisul wasaaruhu shaqo kuma lahan si fiican xilka qaadistaan markaa waxay xal u tahay cid walba oo caqabad ku noqon karta gudi socodka doorashada Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu inkastoo waa dibiga qalsaca ku qoysqaatay Cismaan waxa garoonka laga celiyay gudoomiyihii hore gobolka Gado macallimow si fiican dhowr mar baa la isku dayay oo garoonka laga celiyay ra'iisul wasaaruhu marka isagoo ka duulaya laba maalin ka hor ra'iisul wasaaruhu sidoo sheegay TV-da oo kala hadlay wayna ogeen marka waxaan isdhihi karaa ra'iisul wasaaruhu tubta ugu wanaagsan inuu qaaday waayo suuq Cismaan waayo halka loo dan leeyahay waa Kismaayo waad ogeed muwaadiniin reer Jubbaland ah u socday gobolka meesha la yiraahdo Jubbooyinka u socday magaalada Kismaayo u socday in garoonka laga soo celiyay يعني هوبكيس أما كرسي دورشديس هيدا دورشديس إن أنا قف كستومو إن أنا العلن كرين قف والبو موادنا إن أنا قرونا ذا لقى علن كرين حق اللي يهي دستورك ودي جايو هلك ديجان دورشديس أي تهاي قدونا وحرب حيلك قادسة إن وحي عاد فكر كأد كدي كرتد إيو واحد أركي السوشيال ميديا ذا قلبا دينا يعني دتك غار وحي أورنا يعني حيلك قادسة وحي دبر كل جب كتاي قلدي نبض إنه حزب نبض إنه بدبر جب كتاي ورجعني وحي أد وجود واين مدحويني محمد عبد الله فرماجو قارن وحي لين وحنا وسياسة وحلو بيرت من يا ركلت إيه هول كلا لوداي وشكل سلوك عثمان هرت حلكو وميرتو عندنا لما قالنا حلكو قف كي لضونه بيدولد حلك كقاعد كرتا لكن رئيس وزراءه أوديسو رنتي وقولها وسيرة لكن أمنية مدحوينها شقة كله لكن مدحوينه سو كنت تحجلنا إياه وأقبله وهي صوت وحنا ولا سلوقه نين كان هيئة السوق الشقية أو قريب سوماليا يتليها قرانك آذن عدي رنتي مدحوينه وأنت بدنا وحلينا وجفيد مدحوينها مركا وحبت دولد وحومك مسؤولين يا بدنا هذا الهين تكنت وحيت واسكو هيب مركا دبر جبه كنت اسمع أرد مدبان كل شيء مدحوينه دستوركو أما مدحوينه حق وحود جاية حيالها نبض سجدة أما وحلا يراهضو تليها مدحتو يضو كلاته تليها عيد مدى جودو كلاته إنه فاهم الكيسة كله هذا تليها جود نبض سجدة أما اسمها نبض سجدة فهد ياسين مدحوينه كو هم معها
taliyaha ciidamada ku hayb madaxweynaha ma aha marka arintaan runtii ra'iisul wasaaruhu kalsooni badan buu ka haystaa madaxweynaha marka hal mid aan ka dhex galo ra'iisul wasaaruhu markuu hadlayay wuxuu yiri Jubbaland markii la soo magacaabo xubnaheeda waxaan u gudbin doonaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo liiska madaxweynaha Jubbaland uu soo saaro taas muu aragnaa inay qalad tahay maadaama markii horeba doorashada waxyaabihii ugu badnaa oo caqabadaha ay ka imaanayeen dagaal ka dhaxeeyay madaxweynaha Jubbada iyo madaxweyne Farmaajo isku fahmi waayeen marka ma oran karaa laftigeeda waa qalad Cusmaan yaa u xilsaaray ninkan hawsha golo baarlamaan baa u xilsaaray midowga musharaxiinta u xilsaaray doorashadan madaxweynaha u igmid ra'iisul wasaare maadaama ay qolyaha mucaaradka iyo ay diideen marka madaxweynaha isagoo iska gaabinaya muranka iyo dhaleeceynta iyo buuqa uga imaanaya qolyaha mucaaradka wuxuu arinta ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble hanjabaada ra'iisul wasaaraha ma dhihi karnaa in ra'iisul wasaaruhu hadaladii wixii uu ku hanjabay oo ficil uu sameeyay Cusmaan farintaanu runtii aad waxay ugu socotay wuxuu ku soo celceliyay siyaasiyiinta qof walba oo siyaasi ah oo mustaqbal kale gudaha dalka Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo ama wasiir ka noqdo ama wuxuu ka noqdo carqalad haday ku noqdaan فل بيتك وعوض قرصون هذا رئيس الوزراء لو صباحي لكن واحد أمه دا مركا فرنتان إنه توس وصعته مدحوينها جبلان أحمد مدوبي هذا الذي قدم بي رئيس الوزراء وكل واجب يقرر على النقاط هذا الكوتي وحكم دها إن جبي أهامبا رئيس الوزراء أي كبحان دتك السياسيين تم مقالة مقدشو هذا الكاس كيرجية نيوه أرنتاس وحكي دقيقة هاي إن أنا horta midowga musharaxiintu arinta oo la dan lahaa cid kale oo waayo sababtoo musharaxiin kale ma jiraan cid kale oo musharaxada wala Jubbaland wala Koonfur Galbeed cid maanta la isdhigi karo alle musharax baa gobolka ka soo socda dadku u dulnayay waa dadka caasimada ku nool oo musharaxiinta midowga musharaxiinta la baxay toos buu u ataagay wuxuu yiri caasimada noo faarujiye gobolada aada waxa moodaa in isla markii maanta la tagay maanta labada madaxweyne ku xigeen labada madaxweyne عضلة إيه شبالوني كوسينا على شبالوني كده. أنا وقتي كفاية سنين وحرمنا قدم كان قدام بيو أو مهم سنين عديد دسارنا وأنا كجماعة علنيا فرصة هذا قالجا مرة البقى سيسي داوديا شو كداودا فضلا داوديا الأديجنا حداد نقول عصب تاي مرة البقى برنامج كا يعني كحرنت هاي أما مركو جوه رئيس أي تابع سي برنامج كانوا كوسو جارو إسلام كان عدول سعتيد سبسكرايب للجنال كهدي على سبسكرايب لهن لايك تسار فكر كايو كومنتي جهاز نقول وحاد جعلنا له إن البرامج كسو بيرس آذان وما سنتاي قدب كسد حد أيان ربع إن أسوق جدبو صاحب عثمان دني وحكي إيمانش عبش فرا بدن ما أنتوا قدام بيسي جروي وحكي سعتي شرجرا إديو أما هاتو أضيال أما نقمديو أما سياسيين ما حكي جرا بدلهم كده قصة هذا قبل عثمان waxaad arkaysaa u malaynayaa way sababtoo ah maantay qof walba oo dunida jooga warkaas isla markaa wuxuu ka helaa baraha bulshada media uu ka helaa Cusmaan waxa jirtay beel kamid ah beelaha diga gobolka Nugaal waliba magaalada Garowe in ay madaxweynaha ay ka cawdeen madaxweynuhu wuxuu rabaa cidda la fikirka ah inuu aqalka sare u soo xulo sidaan hadda xogta ku hayo Saciid Cabdillaahi Dani Imaaraadku tagay malaayiin lacag soo qaaday wuxuu rabaa markii uu xubnaha aqalka hoose iyo aqalka sare ku soo baxay markuu jeebka ku habsado inuu ku dhawaaqo sharax madaxweyne marka hadda waxa jirta marka beelaha hadda qeylinayo oo leh war sanad tarahan reer heel baa la anaga soo weynay Saciid wuxuu rabaa ninka uu ku aragti ah inuu laaluus ku bixiyo isimadii kala jibiyo lacag u adeegsado baaq waxaan u dirayaa marka reer Puntland nabadoonnada iyo ismada iyo boqorada iyo beeldaajiyaasha iyo garaadada iyo sulaadiinta cid walba oo arintan waxa jirta hadda cid uu kursi ka qaaday waxaan arkayay dhalinyaro qaar ka mid ah xataa saxafiyiinta oo beejis soo dhigay kursi qolo beel lahayd uu beel kale u wareejiyay arintaas Saciid awadaas ma leh Saciid xaq wuxuu u leeyahay musharaxiinta xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose inuu soo gudbiyo la eego war ninkaanu dambi mu leeyahay ninkaanu sidee yahay dambi dalka dambi ma ka galay dambi lama yahay laakiin dooqa reerku ay soo dooqanayaan ama beesha ninkay soo dooqanaysaan Saciid fara kuma laha shaqana kuma lahan laakiin hadda waxaan ogsoonahay inuu faragelin toos ku hayo beelihi oo cabashada bari bilaabatay Puntland ka bilaabatay Garowe caasimada Garowe ka bilaabatay
iska daa hadda roor gorow ku bilaabatay goolka bari iyo maxaad ka filaysaa mudug iyo sool iyo sanaag toos buu faragelinayaa cidda uu ku aragti ah lacag buu adeegsanayaa cidda ka aragto duwana muquunin iyo xoog burba inuu dabcan xilli doorasho la gaaray waa xilligii nin walba iyo kartidiisa iyo afkiisa iyo maalkiisa iyo qorshihiisa handisaadkiisa siyaasadeed cusbaan hal mid baa jirta beelaha Soomaaliyeed xaq iyaga oo qofkay soo saarayaan si fiican qofkay isdhihi karaan qofkaas ay ilaa Soomaaliya maanta Soomaaliya doorashada ma oran karnaa واساس وين سوماليdu xitaa labadii walaalaa ninkii lacag la weyn marka aad baad u mahadsantahay waqtiga cariir nagu ah qodobkaas ayaan barnaamijkeena ku soo gunaanudeyna saaxiibada qiimaha badan oo na daawanayo intaanu barnaamijka barnaamij xiga aan ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa salaamu calaykum Cusmaan adigana aad u mahadsantahay